waxaan maanta isweydiiyey maxaa kalifay in buurmado iyo muuse bixi hadalla qalqalaan ay isweydiistaan keligay maaha guud ahaan shacabka somalilan ayaa su-aasha isweydiiyey oo yidhi maxaa kalifay tusaale ahaan muuse bixi baa qoraalkan soo dhigay arrimuu kaga hadlayay qoraalkaa markuu soo dhigay xoogaa kabacdi waxaa la arkayey buurmado oo qoraalka si qadhaadh uga jawaabay hataa si maha macaan maaha ma garanaysa markiiba anigu waxaan isweydiiyey iyo dadyo kaloo fara badan buurmado maxaa ka cadhaysiiyey uu ka jawaabaya haddaba arrintaasaa doonaya inaan kaga dhiijiyo oo haddii aadan fahmin anigu aan ku fahansiinaya anigu laftiga markii dambe aan fahmay marka hore ma fahansanin haddana inka buurmado baan magaraysa maxaa odaga ku dhacay oo lama badaha maxaa geliyey waa gusday wadda magaraysa inaan ka ya waa ku fahansinaya muuqaalka inoo leegaray inoo sheegtay marka goobaad muuse bixi qoraalkiisa waa kan inta hore wuxuu dirayaa tacsi iyo marxuumadii dhintay allahu naxariisto qabriga u nuuriye iyo dadkii dhaawacmay buu tacsiyadeynaya qoraalka qaybtiisa saddexe wuxuu la hadlayay dowladda waxaan u leeyahay arrintaa dhacday waa laga baaqsan karayay siyaabo kaloo loo xalliyey ayaa jiray haddaba hadalka buurmado ka cadhaysiiyey ee uu jawaabta degdega ka soo bixiyey waa hadalkan soo socda oo fiirso muuse bixi hadalkiisa isagoo sii wata ayaa wuxuu yidhi suldaan qabiille axmed habkii loo qabtay isagoo dareenkiisa cabiraya markaana qaranka aan waxa dhibaataa u geysan iyadoo hadalkaa u fiirso hadalka buurmado ka joogayo iyadoo la koolkoolinayo dadkii qarankan dembiga ka galay calaashaan suldaan qabiille isagoon qarannimadii ka soo horjeesan waxa dhibaataa geysan ayaa la qabtay iyadoo weliba la koolkoolinayo buurmado oo maalin dhaweed ta calaashaan qarankii baan ciidan baan jibinay isagoo lahaa la koolkoolinayo ya ma garanaysa hadalka markaa uu buurmado ka jawaabayo hadalkaa yara ku calaamadiyo weeye haddaba ay garata haddaba buurmado ayaa hadalkaa isagoo ka jawaabaya dee hadalkaa badhaadh aan macaanib ku jawaabay faahfaahin badan uma baahna hadalka walaagtaan wuxuu leeyahay habkii gowraca muuse bixi buu yidhi waa qofkii ugu badnaa ee xidhxidho dadka marka calaasha reerkiisa la xidhxidho ayuu magaranaysa qarannimo waxbuu saagaya dadku may fahansaneen waxay lahaayeen muuse bixi maadaama uu ka hadlay dadkii lagu dilay sheekh iyo arrimaha dowladdana talada u soo jeediyey oo suldaan qabiille ka hadlayey waa maxay hadalladan ka soo yeedhay buurmadow bay dadku lahaayeen laakiin isku soo wada duuduubo buurmadow intaa yaraan ku calaamadiye buu ka xanaaq oo uu leeyahay iyadoo la koolkoolinayo dadkii qaranka dembiga ka galay anyway adiga say kula muuqataa ma buurmado baad khaladka saartay iyaad khaladka saaraysaa bal commentiga ku niiki arrinku halkaa markuu marayey ninkii abwaan kujaaro oodihiisa jiidanayaa soo galay salaadiintii suldaankan xiran iyo culimadii somaliland buu saa u jiiday suldaanku muxuu dambiyu sameeyey suldaanku kicin buu sameeyey dadkii buu kala soocay wuu kala hayb soocay wuxuu saa walaaqay dee arrintii markuu saa walwalaaqay oo xisaab ganaysa yaa waxaa halkaa isaguna ka soo galay boqor badmadow oo badweyntii berberina daba socoto waxa uu yidhi madaxa kujaare reer hargeysow waa inay keentaan malaayiin doolar baan bixinaya waxaan amar inagu siinaya ninka ii keena ku jaray aniga madaxiisa lacag baan saaraya minagoo reer hargeysa dhex joognaa nin 300 meel kasii yimid wanaysa hargeysa nagula dhex murmay ma ku jaraa inuu hargeysa kaga adkaan weyne arrinku halkaa markuu marayey ninkii ramaaxna magaalada burca ayuu ka yimid maganaysa walaalayaal shiikh buu soo galay reerkii dayreeyaan ya ay oo xanaaqsan baa dhagax dhowdaa kaga saaray daw arrinku halkaa markuu marayey anigoo magaraysa nin cabdalle qoyana may nin cabdalle qalalana ayaa magaraysa ramaax waxaan ka reebay dhagaxaantii lagu oriyay shadaanka iska naara ku dhimin miinan cabdalle qalalana maxaa badaha yidhi shadaanka iska naara isku soo wada duuduub walaalayaal waxyaabaha ku salsalaaxay ku tutuujiyay maxaa kaaga soo baxay ya mid kale aan doonayo ku darsado oo mawduucayga ka madax bannaan midkani waa su'aal aan doonayo reerka habar awal iyo reerka garxajisan aan weydiiyo lama la kala xanaaqaan meesha hore baynu joognaaye mawduucyada kala geli maayo tusaale yar haddaan ku siiyo reerka garxaj la yidhaahdo dhowr iyo 3 sano ayay ka maqnaayeen kursiga oo la iska kaashanayo laga codeynaya ganacsi
doorashadii 2017 kii dambeysay dadkii labada islaamada habarta xabashiyad iyo islaanta lacagta haysatay kiishada weyn garanaysa dollarku dhex fadhida garanaysa abarawa ay iska kaashadeen codka iska shubteen wax kastoo la isku sameeyay mar kaliya ma maqal ileeg wala kaftamayna mar kaliya wallahi ma maqal iyagoo nin habar jeclaa ku leh hargeysa maadana 300 mil baa ka timiyay qortiisa noo kala ma wadileynaa magaalada ama hargeysa ka sheeganay waliga ma arkin ninka xaso nin habar jeclaa ka sheeganay magaalada hargeysa si kale noo caayana xawashiyad baa la shaadon baa la sheemel kale naga soo galaan nawda naga saaray laakiin sawiga ayaan ku fadhina ma nagama sheegta walaal su'aashan weydiinay waxa tahay maadaama inagu neeyno habar jeegan maadaama isku hay oo muddo badan codka isku tursideen jinna habar wali iyo habar jeclo ilmaada habar wali magaalada hargeysa habar jeclo maxaa uga sheegtaa su'aashaga isu jawaab ya imika tusaalahan eeg ku jaare unugu meehile howl talakaas maaha dadmadu hawl jawaaba howl taas maaha laakiin habar jeclo dhan mid jawaabaysa habar jeclo xukuumadda maxay ku sameeyay أنا أسف تعال بص كلام عكا غلطان جزنا وجه السعودية عكا تبي على زوج سدي يا مش يوم سدي يا سواش كودين سواش الأك واحد سواش واحد ما يسا مرة تيجي هرجيسة يساق على شيء كنا يا تقول لي هفتي سمرون تيجي وضعك هنا لا هرجيسة سوي أمنية يا anyway سواش يجي سو جواب وكم تيجي يقول رب كم تيجي ديتش maxaad ka haysaa walaalayaal nabadgelyada la ilaaliyo waxa leeyahay dowladda Soomaaliland suudaan qabiilaha la soo daayo anigu la soo daayo ma dhawaataan muuqaal diyaariyay waxaan suudaan qabiilaha la soo daayay wali waxaan ka hadlay hooyadii habriirtii oo dhimatay qaar bay ugu lahaa dad baad isku diraysaa hadoogsano wallahi inaan isku dirin nabad dowladana la shaqeeyo nabad ciidankan uu heliyay tacsi u baantar dadka waxa soo qoray hooyadii aabbood baan la taxbadaan ku dhicin tabi baa laga hayaa dumar baad adduunka dunida waxba kama ogid weeyay yaa waad si galgalan waad soo galgal geedada joogan lagu gubin waad iska dacdacaysaa halkan quraac iska aamudiyo yaa waxaan sheegay dadka committee ka fadhiya qofka committee qaldan ay soo qoraa qortiisa kan wala lacag waan siinaya halkaas aad ku leedahay anigu dadka committee ga wala committee ga yaas inta soo iga qabtay suudaanka la soo daayay waxa la gareeyay oo islaamaya